kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadan doonaa khaladaadka uu muxuu ahaayay uu qofku ka galo noloshiisa khaladaadkaasi waa khaladaad hadhow toole saameyn ku yeelanaya mustaqbalkaaga khaladaadka maxaa ugu horeeya khaladaadka waxa ugu horeeya inuu qofku inta uu dhalinyarada yahay in uu bilaabi waayo ganacsi uu noloshiisa iyo naftiisa oo ku maareeyo oo kala soo baxo dhaqaale ku filan hadii uu qofku bilaabi waayo waxay noqonaysaa khalad uu naftiisa ka galay waayo mushahar meel lagu ma gaaro mushaharaad meel ka qaadanaysa dhowr boqol $100 ama dhowr kun $100 noloshaada ma kafeynayaan markaasna waxa la yiraahdaa qofka noloshiisa iyo mushaharka uu qaataa markasta way isku sargaan yihiin markasta uu mushaharkaagu uu kordhana baahidaadu way kordhaysaa marka khaladka ugu weyn qofku gali kara waxa weeyaan inuu marka uu dhalinyarada yahay inuu business ama ganacsi uu bilaabi waayo sidoo kale qofku inuu cuni waayo cunto muxuu ahaay dheelitiran oo nafaqo leh oo muxuu ahaay caafimaadkiisa u wanaagsan taasina waxay keeni kartaa khalad uu naftiisa ka galo qofkaasi tusaale qofku hadii uu cunto wanaagsan cuni waayo waxa laga yaabaa hadda tolo marka uu da noqdo ama qofku noqdo in caafimaadkiisi wax badan ay ka dhinmaan jirkiisi wax badan oo dareemo indhihiisi wax badan dareemaan dhamaan xubnihiisi muhiimka ah ay muxuu ahaayay baahi badan ay muxuu ahaayay ay dareemaan sida darteedna ay xanuun ku soo diriyaan oo ay la soo dirsaan qodobka saddexaad waxa weeyaan qofku inuu waxba dhigan waayo inta uu qofku shaqeysanayo dhalinyarada yahay inuu waxba qabsan waayo waxna dhigan waaya taasina waxay saameyn ku keenaysaa hadhow toole marka uu da noqdo haduu dhaqaalihiisa ku soo loo faray oo soo isticmaalay hadhow toole marka uu weynaado taasina waxay ku keenaysaa dhibaato oo dadka Soomaalidu tiraahdo nin yaraan ku loo faray wuxuu lumiyay raadicay yaani yaraanta hadda lacagtaada soo khasaarin jirtay markaad weynaatid baad ka qoomameynaysaa qodobka afraad waxa weeyaan qofku inuu maalgashi uu sameyn waayo maalgashigu nooc la nooc doonaade lacag baad leedahay meel baad gashatay meesha lacagtaadu way ku koraysaa markaa waa inaad noqoto qof share holders waa inaad ka qayb noqotaa sidoo kale waa inaad samaysataa hanti waa inaad lacagtaada gashataa sida dahabka oo kale waa inaad lacagtaada gashataa dhulka oo kale waa inaad lacagtaada gashataa hanti ma guurta ah oo dhulka ku koraysana waa inaad lacagtaada gashataa sidoo kale waa in waqtigaaga aad ku kharash gareyn weydo naftaada waayo waqtigaagu waa noloshaada waqtiga oo ka lumaana waa noloshii ka luntay hadii waqtigaaga aad safe gareyn weydo oo wax ku qaban weydo naftaada taasina muxuu ahaayay hadhow toolayaad ka qoomaynaysaa 20 jirkaaga iyo 30 jirkaaga iyo 40 jirkaaga hadii aad naftaada iyo familygaaga uga faa'iideysan weydo waqtigaaga hadhow toola taasina waxay kugu noqonaysaa waxaad ka qoomamaysid sidoo kale qodobka ugu dambeeya waxa weeyaan in bulshada aad la wadaagto dareenkaaga hadii dhibaatooyin ku soo waajahaan hadii mushkilado ku soo waajahaan hadii caqabado ku soo waajahaan hadii aad dhibaato dareentid hada qof walba uga sheegaysid ka waran sidaas baanahay waxa ay soo gaaray dhibaatadaas ay haysata waan jabay waan ba'ay waan dhibaatooday waxa soo dhan ka war dadka sheegaysid taasina waxay ku keenaysaa mustaqbalkaaga muxuu ahaayay in dadku ay ku nacaan marka qodobadaas waa qodobada uu qofku markuu weynaado uu ka qoomameeyo marka halkaas ku joojinayna